دكتور عبد الرحمن دعالي بيلي وزير كمالية الصومالية وقبت شركة جرائد بالله waxa uu ku darsay xaaladda dhaqaalaha dalka miisaaniyadda sanadkan iyo caqabadaha ka taagan canshuur bixinta wasiirka ayaa ugu horreyn digniin adag u jeediyay ganacsatada aan bixin canshuurta xaq loogu leeyahay hadday 10 canshuur bixiya jiraan 20 aan bixin baa jira oo kabaniye waaweyna oo anagu inta halka aan joogay aan gamba bixin ya oo dad bay mushtariye ah maanta laga bilaabo canshuur la bixinaysa dukaan ku furaanaya ma jiro business kala ku furaanaysa ma jirto ya waxaan rabnaa waxa weeye ya inaad canshuurta iska bixiso dadka doodu noo socoto halka inoo maraysa waa ogtihiin idan magacaabi maayo laakiin next time kalkaan imaado wallahi waa idin magacaabaya waxaan idin sheegayaa dadka Soomaaliyeed in canshuurtii diideen ayaan idin sheegaya waxaan markaa leeyahay dood baa inoo socotay ilaahay baan idinku dhaariyay wixii cashuureed ku leeyahay iska bixiya haddii kala sharciga inoo dhaxeeya halka yaala inkastoo dakhliga dalka uu kordhayo marka loo eego sanadihii la soo dhaafay haddana lacagihii la filayay inay ka soo xaroodaan gudaha dalka oo ah 20 milyan oo dollar ayuu wasiirku sheegay in kaliya bishii ay ka soo xarooto 14 milyan oo dollar bishii kharashkeena waxa ku filan kharashka federal government-ka ilaa 20 milyan ayaa bishii ku filan waxaad iga markhaati tihiin inaad sanadkiina soo dhaafay mushaarkii la wada bixiyay sanadkii hore mushaarkii la bixiyay ya oo qofka Soomaaliyeed ee dawladda u shaqeeya ku tashanayo mushaarkiisa inuu soo galo oo inta soo qoys reerkii ku talagalayo shaqada marka loo soo kalaho ee shaqadaasi dhamaato bishu markay dhamaato qofkii wixii loogu talagalay inuu dhameysto ya ayaa ma garanaysaa inaan ayaa ogtiin taasina tu soconaysa ayay noqonaysaa hadii la yiraahdo waxa markaa aan doonayaa inaan sheego 20 milyan waxa aan ka hayo ee gudaheena ka soo gala bishu ugu bato 14 wasiir Beele waxa uu tilmaamay inay sameynayaan telefoon gaar ah oo loogu talagalay canshuur bixiyayaasha inay ku soo gudbiyaan caqabadaha haysta waxaan idin kula talinaynaa ama sharcigu yahay waxa weeye inaydan cidna canshuur u dhiibin ee banka tagtaan banka tagisan maxaa lagu leeyahay inta waa isla hadlaysaan inta lagu leeyahay banka tagi waad soo dhigi warqadaada yar baad soo qaadan ninka booliiska ama ninka canshuurta qabta ee wasaaradda ka tirsan waa taa warqadaydii baad oran haday wax ka yimaadaan telefoon waxa sameynaa telefoon cusub baan sameynaa oo 2 number aad ku soo dhufato laga qabto magacaagana aan la ogaan cidina waxba ogaan aad noo sheegtaa hadii wax qulqulaasi jiro wada hadalka diin cafinta oo shirkiisa jaraa'id uu ku soo qaaday wareegiisa saddexaad oo la filayo in la soo gabagabeeyo bisha afraad ee Abriil ee sanadkan ayuu sheegay in rajo badan ay ka qabaan waxaase wasiirku ku daray in wali ay taagan tahay caqabada ah dakhli kordhinta oo kamid ah sharuudaha diin cafinta marka waa ku talagalsanahay xagga iyaga waa dhameynayna hadii la yiraahdo anagoo of course dadka Soomaaliyeed ka sugayna caawimada ugu weyn oo qofkii cashuur lagu inuu bixiyo laana mar walba waxay ku leeyihiin cashuurtiina way hooseysaa intaas GDP-giina yahay koridda dhaqaaliin intaas yahay waxyaalaha soo gala wadanka intaas yihiin remittance-ka soo gala muxuu lacagta ka timaada muxuu inaan diaspora dadka dibadda jooga intaas ay tahay ya dhaqaalaha wadankiina intaas yahay cashuurtaad qaadana waa inta leeyahay mar walba isku filaada baa leeyahay waxa iska bixiya عبد الشكور الأحمد ورباهين تقرنكا مقدشو